sheegan meeqa gadaysaa kabarn hadaa 26,000 oo ku siishan Soomaali ah 24 saacba waxa baaba'da 100,000 oo lacagta shilinka Soomaaliga haddana cidna uma aragto culays weyn oo Soomaalida wajahayso inkastoo ay lacagtu tahay mid kamid ah astaamaha uu dal leeyahay balse dalkeena ayaa u muuqda inuu yahay mid ku yaala dhul Mareykanka uu leeyahay sababtuna waa in meel kasta iyo badeecad kasta qiimo ahaan lagu sheegayo lacagta doolarka sheegan meeqa gadaysaa kabarn hadaa 26,000 oo ku siishan Soomaali ah Soomaali abaa badan oo jeexay ma fahanti marka shilin Soomaali hadaan qaadana canshuurta dadka aan u sii leenahay taa inuu soo celinayaan marka qof walba wuxuu rabaa EFC askariga taa EFC rabaa ganacsiga waxa uu ku xiran yahay hadba sida loo iibsado badeecadaha caqabad weyn ayayna ku tahay ganacsatada qaar ee Muqdisho inay qabtaan lacagta shilinka Soomaaliga ah sabab la xiriirta inay ku adkaanayso bixinteeda ma jiro ganacsi ku yaala Muqdisho oo marka aad weydiiso qiimaha badeecadaha yaala lagugu sheegayo shilin Soomaali ama waa dhif iyo naadir lacag dheeraad ah ku dara waa qofa waxay ku keensanay 25,000 walaalo iga si ugu qaaday ku leedahay waa ku qaadatay 3,000 ku dariyay 28,000 hadda doolar la ku gadaa shilin Soomaaliga wata soo sarif leenaa bilaabashadii aaladaha casriga ayaa noqday caqabad kale oo hor leh taa oo keentay in dadka gacmahooda ay ka baxda lacagtii shilinka Soomaaliga inkastoo marka aad raacayso gawaarida dadweynaha ee BL-ka loo yaqaano la aaminsan yahay inuu yahay halka ugu badan ee loo adeegsado lacagta shilinka Soomaaliga haddana bajaajta sidaa ma aha shilin Soomaaliga asaa ibra oo jeexan yahay qofka qaadanaysa male kaalinta dadkiisa ma qaadanayso marka waa lagu qasban yahay in shilin Soomaaliga aan diidno lacag markii qofka 27,000 uu ku siiyo 8,000 euro maadaama doolarka qof walba oo hadda doolarka wax qiimo uusan lahayn laakiin shilin Soomaali qofka hata maaragtay markuu wax isticmaalayo لازم إنه لا شنس توتوروا مركز تاسنا معناها مساعنيسو دخلنا معناها مو زايدة waxaa lagu bixiyaa mushaaraadka xitaa shaqaalaha dawladda iyadoo lacagta shilinka Soomaaliga aysan waqtigaani ka shaqeynin qaybo kamid ah gobolada dalka way joogii hore Soomaalida ayaa ku talinaya in la daawaco lacagta shilinka Soomaaliga ah oo dabargo xoog leh ku socoto ganacsatada waaweyn waa doolar waaweyn marka doolar la hadii lagu kala shaqeysanayo umada dhibaatadeeda waxa way wadanka dhaqaalihiisa hoos u dhacaya waxaana keenaya lacag la'aanta keenaysa wadana dhaqaalihiisa wuxuu ku kacaa markii ganacsiga uu socdo haddii ganacsi soconin wax soconaya ma jiraan hadda magaalada caasimadda xamar u jeedid lacagta shilin Soomaaliga waa ku yaryahay maanta $100 ninkii ku yaray sarif ma heli karo kulay sarif ma heli karo oo cash isi waa ku adagtay waxaana keenaya waa si yaraanaysa markii waa si baabooysa hadii maalin walba 10,000 oo shilin Soomaali jaxanta la tuuro ka waran sanadka meeqa dhamaanaysa banaayina dhamaanaysa dibkaasna waxa keenaya in la habeeyo dawladda cusub ee maanta aan weynahay inay soo saarto lacag cusub lacagta shilinka Soomaaliga ayaa hadda maraysa heerkii ugu dambeeyay iyadoo lacagtu ay noqoto mid baabaa waxa laga yaabaa in sanadaha soo socda gabi ahaanba aad ku diinto muuqa lacagta shilinka Soomaaliga lacagta doolarka ayaana noqotay halbowlaha suuqa dadka ganacsiga yaryar iyo kuwa waaweyn heesta ayaana ku kala iibsada lacagta doolarka ayagoo diidaya lacagta shilinka Soomaaliga waxayna taa u sababeynayaan in shilin Soomaaliga qofka markaa ka qaadato in kala bar lacagtu ay tahay mid jeexan dadkana aysan ka qaadanaynin Shukri Caabi Cabdi Risala TV